waa qisadeenii jacayl maal ka sarreeya waxay noo maraysay qaybteennii afraad iyo hodan oo aabbaheed uu fahmay jacaylka kala dhexeeya Ibraahim. hodan habeenkaas markay guriga ku noqotay waxay dareentay in jawiga guriga wax ka qaldan yihiin. guriga weyn oo ay ku nooleed mar walba wuxuu ahaa meel degan, laakiin habeenkaas waxaa ka muuqday aamusnaan culus. shaqaalihii guriga joogay waxay u dhaqmayeen si ka duwan sidii hore. markii hodan guriga soo gashay, darawalkii ayaa si tartiib ah ugu yidhi, hodan, aabbaha wuxuu rabaa inuu kula hadlo. hodan qalbigeeda si degdeg ah ayuu u garaacmay. waxay dareentay in wax dhacayaan. hodan waxay u socotay xafiiska aabbaheed oo ku yaallay gudaha guriga. markii ay albaabka furtay, waxay aragtay aabbaheed oo kursiga ku fadhiya. miiskiisa hortiisa waxaa saarnaa waraaqo badan, laakiin wejigiisa waxaa ka muuqday xanaaq. wuxuu si adag u yidhi, hodan, fadhiiso. codkiisu wuxuu ahaa mid culus. hodan waxay ogaatay in arrintu aysan sahlanayn. aabbaha hodan ayaa si toos ah u weydiiyey yow yahay wiilka aad maktabadda kula kulanto. hodan qalbigeeda waa ku adkaatay su'aashaas. waxay ogaatay in aabbaheed ogaaday. waxay isku dayday inay deganaan muujiso. waxay tidhi, waa saaxiibkay. aabbaheed ayaa si xanaaq leh u qoslay. wuxuuna yidhi, ha iiga dhigin wax yar. waan ogahay in aad marar badan la kulantay. kadib wuu sii watay oo wuxuu yidhi, wiilkaas waa qof sabool ah. hodan ayaa si deggan u tiri, saboolnimadu ma aha ceeb. aabbaheed ayaa si adag miiska u garaacay. wuxuuna yidhi, hodan, adiga waxaad ka dhalatay qoys sharaf leh. ma oggolaan doono inaad wakhtigaaga ku lumiso wiil aan waxba haysan. hodan qalbigeedu wuu dhaawacmay. waxay tidhi, aabbe, qofka qiimihiisu ma aha lacagta uu haysto. laakiin aabbaheed ma uusan dhegaysan. wuxuuna sii raaciyey, jacaylku ma quudiyo reer. lacag la'aan noloshu ma socoto. hodan indhaheeda ilmada ayaa ku soo istaagtay. waxay ogaatay in aabbaheed uusan fahmayn waxa ay dareemayso. hodan habeenkaas hurdo ma helin. waxay sariirta ku jiiftay iyadoo ka fikiraysa hadalkii aabbaheed. hal dhinac waxaa joogay qoyskeeda, dhinaca kalena waxaa joogay qalbigeeda. waxay nafteeda ku tiri, ma iska dhaafaa Ibraahim, mise waan la dagaalaa caqabadaha. dhanka kale, Ibraahim wuxuu sugayay hodan. maalintii xigtay wuxuu aaday maktabaddii. wuxuu fadhiistay miiskii ay mar walba ku kulmi jireen. saacad ayaa dhaaftay, laakiin hodan ma imaan. Ibraahim qalbigiisu welwel ayuu galay. Ibraahim wuxuu naftiisa ku yidhi, waxaa laga yaabaa inay ogaadeen qoyskeeda. wuxuu xasuustay hadalkii saaxiibkiisa Yuusuf. hadalkaas qalbigiisa wuu ku soo noqnoqday. gabadhu hadday qoys taajir ka dhalatay, arrintu way adkaan doontaa ayay ahayd. Ibraahim wuxuu dareemay murugo. markii uu maktabadda ka baxay, qof ayaa magaciisa ugu yeeray, Ibraahim. dib ayuu u eegay. waxay ahayd hodan. wejigeeda waxaa ka muuqday welwel. Ibraahim ayaa si degdeg ah ugu yimid. wuxuu yidhi, hodan, maxaa kugu dhacay? hodan ayaa si tartiib ah u tiri, aabbahay wuu ogaaday. Ibraahim qalbigiisa hadalkaas wuu ku dhacay. waxay tidhi, wuxuu rabaa inaan kala fogaanno. Ibraahim ayaa aamusay dhowr ilbiriqsi. kadib wuxuu yidhi, hodan, anigu ma hayo lacag badan, laakiin waxaan hayaa qalbi daacad ah. hodan ayaa eegtay. Ibraahim ayaa sii watay, haddii aad rabto inaad iga tagto, nolosha ayaan kugu tabi doonaa. hodan ayaa si adag u tiri, anigu markaa tegayo. jacaylku ma aha lacag, adiga ayaana i baray midaas. Ibraahim qalbigiisa hadalkaas wuu ku farxay, laakiin weli wuxuu ogaa in caqabado badan hor yaallaan. hadda sheekadu waxay gashay marxalad cusub. jacaylka hodan iyo Ibraahim wuxuu galay dagaal adag. hal dhinac waxaa joogay jacayl, riyo iyo qalbi daacad ah. dhinaca kalena waxaa jooga lacag, awood iyo qoys diidaya jacaylkooda. su'aashu waa, jacaylku ma ka adkaan doonaa caqabaddan?